السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن أصحاب تملول بوجوكتان. سودا وهذا يعني ذي لا يحيي حدو إله يرادو موقال كان وحن كسو جد بين دونا علم باريس لجو سمية وضمد أفريقيا كيالو أي واحد لجو قاعد شنطة وضن عافيمات كذا وقط يوركسين يحيي حبك السيستم كأي واحد كوباران ugu wanaagsan shantaas wadan magacyadooda iyo meelaha ay ku kala yaalaan ayaan muuqaalkan insha Allah ta'ala ku soo gudbin doonaa balse intaan muuqaalka u guda galin waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelkeena subscribe inoo saartid laagtana waxa ay noo gaarsiinaysaa meel fog anagana waxay noo tahay dhiirigelin aad ayaad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta برنامجكم waxaan ku soo gudbi doonaa insha Allah ta'ala shanta wadan ee ugu tayada fiican xagga systemka ama baaritaanka caafimaadka ee lagu sameeyay Afrika. Cilmi baaris lagu sameeyay wadamada Afrika ayaa waxa lagu ogaaday shan wadan ee ugu tayada fiican habka systemka caafimaadkooda qaabka ay wax ay u baaraan iyo qaabka ay u daaweeyaan. Shantan wadan ee Afrika ku yaala ee ugu tayada fiican xagga caafimaadka ayaa waxa wadanka koobaad laga dhigay wadanka loo yaqaan South Africa ama afka Soomaaliga markii lagu sheego Koonfur Afrika. wadankaas Koonfur Afrika ama South Africa ayaa waxa galay kaalinta koobaad ee ugu tayada fiican xagga systemka caafimaadka halka wadanka labaad laga dhigay wadanka Kenya ee isagana ku yaalo Afrika geeska Afrika ama bariga Afrika ayaa waxa uu noqday wadanka labaad ee ugu tayada fiican xagga systemka caafimaadka marka loo eego wadamada Afrika halka wadanka saddexaadna laga dhigay wadanka Tunisia isagana Tunisia waxa uu noqday waa wadanka Afrika ku yaala ee ugu tayada fiican ayaa wuxuu kaalinta ka galay qodobka kaalinta saddexaad halka kaalinta afraad ee wadanka Algeria oo soo galay xagga systemkiisa ugu wanaagsan tayada caafimaadka wadanka ugu dambeeya ee shanaadna waxa uu noqday wadanka Nigeria oo ah wadan populationkiisa ama dadkiisa aad u badan yihiin shantaas wadan ayaa waxa ay noqdeen shanta wadan ee ugu tayada fiican Afrika waa South Africa kaalinta koowaad gashay Kenya oo kaalinta labaad gashay iyo Tunisia oo saddex gashay Algeria oo afar isku taagtay ugu dambeyntii Nigeria ayaa waxa noqotay wadanka shanaad aad ayaad ugu mahadsantihiin dhageysiga barnaamijkan insha Allah ta'ala haduu Allah idmo waxay noo soo socdo muuqaalo kale oo aan kaga hadli doono haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala waxaan soo gelin doonaa muuqaalo kale aan kaga hadli doono wadamada Afrika iyo sida ay u kala tayaysan yihiin ama sida ay u kala horumarsan yihiin dadkooda iyo sida ay kala yihiin deemanka adduunka loogu leeyahay iyo sida ay u kala dawlad fiican yihiin barnaamijyadaasi oo ah barnaamijyada ugu xiiso badan ayaan soo gelin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo intaan barnaamijkan oo kala dib u kulmi doono asxaabay waxaan idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo barnaamijka waxa idin soo saaray anigoo Ustaad Cabdinaasir ah halkaad ka dheehanaysan ama ka daawanaysaan waa channelka Ustaad Cabdinaasir channel